waxaan kala hadlayaa awalan muqaadaraadka oo hadda ku soo siqaya gobolka Hareerihiisa ama miyi ha noqoto ama magaalada ha noqoto bulshada waxaan ka codsanaa qof kastoo khamriga soo geliya dalka ama gaadiidkiisu qaado ama gurigiisa lagu qariyo waa la ogaanayaa bulshooy aan wada qabanno bulshada waxa haddii aad aragto meel muqaadaraad yimaado amni ma jiro wax kastoo amnigeena khatar ku aan meel uga soo wada jeesanno waxa habeenadan la sheegayaa niman hubaysan oo madax duuban oo ku wareegaalaysanaya saacadaha dambe magaalada kuwaana buluusku wuu soo qabanayaa haddaa bulshada gobol ku noortiina waxa doorka ay leeyihiin inamada hubka sita la leeyahay suuqay marayaan oo habeenkii gelinka dambe soo baxaan buluusku waa daba jooga ama guri ha ku jiro ama gaari ha ku jiro ama ha lugaynayo gacantaanu ku soo qabanayna idinkana waxa la idinka rabaa buluuska bulshada waxa laga rabaa gacan siinta ay ku lahaayeen ha qarinina qof dhibaato ka wada magaalada soonkeeda waxaan aad iyo aad u salaamayaa ciidanka buluuska gobolka Sanaag sida uu gobolkan xaaladiisa nabadgelyo maanta halka ay marayso ilaahay ka sokow iyagu inay sabab u yihiin inay nabadda gobolka Sanaag noqoto meel bulshadu ku nool ku faraxdo waxaanu ku dadaalaynaa haddii ilaahay ka dhigo halka iminka wax marayaan meel ka si fiican inaanu gaadhsiino waxaan hadalka kaga tegayaa bulshada gobol ku nool haddii khalad ka dhaco buluuska in loo dulqaato annana aanu khaladka haddii ilaahay ka dhigano saxno aad waxaanu haddana uga codsanaynaa dadweynaha inay aad nooga gacan siiyaan nabadgelyadu waa lafdhabartii iskuul la tegi maayo masaajid la tegi maayo la ganacsan maayo haddaan nabadgelyada aan dadka xun hoosta la marinin dembiga waxaa la yidhaahdaa marka laga hadlayo bileysku ma baabiyaan laakiin hoos baa loo dhigaa waxaynu u baahannahay in bileys dembiyada hoos loo dhigo hoos aynu yarayno kol haddii la yarayno waa inta kale waa waxbaa laga qaban karayaa nabadgelyada gobolka guud ahaan alxamdulilah rabbil caalamiin boqolkiiba boqol waa wanaagsan tahay waxaanay ku gaadhay heerka shaqo iyo dadaal la muujiyey oo ka yimid ciidanka booliiska iyo maamulidda taliyaha qaybta booliiska oo runtii bulshaduna aad raalli uga tahay saaka waxaan halkan kaga inaan bulshada ceergaabo ku nool u gudbiyo fariintaas oo odhanaysa shay kastoo dunida ku nool wuxuu u baahan yahay nabadgelyo waxaanu annagu diyaar u nahay haddaanu nahay booliiska gobolka Sanaag ceergaabo inaanu ka shaqayno nabadgelyada habeen iyo maalin hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya u soo wareeg Somtel